kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka dibadiisa iyo gudihiisaba naga soo gaaray halkani bogga YouTube aan ku leenahay ee wararka maanta TV qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantayna waxaa kamid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo bilaabay qorshe uu ku wajahayo ciidamada dawladda federaalku ay ku soo daabulayso gobolka Gado dawladda federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jirta inay baajiso shirka beelaha mudulood ee ka qabsamaya magaalada Muqdisho xogta safarkii safiirkii Axmed Shide ee Hargeysa iyo waxa laga yiri farmaajo ahlu sunno oo shaacisay inay jawaab degdeg ah ka bixin doonto bandowga dawladda ku soo riday magaalada Dhuusamareeb dawladda Itoobiya oo war ka soo saartay raaligelintii farmaajo ee Somaliland al-shabaab iyo dadka deegaanka Ceel Cali oo ku dagaalamay dhagax qaali ah iyo khilaaf xoogan oo ka taagan habaamuuska dawladnimo ee Puntland intayna ugu dagalin safaafaynta wararkeena maanta fadlan daawada nagu soo biir oo subscribe saaro gambaleel kana furo si aad uga mood noqotid daawadayaasheeda hela warbixinada aan halkan ku soo gudbino ku mahadsanid haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo xalay ku hoyday degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan degmadaasi isagoo ka la hadlay la dagaalanka al-shabaab waxa Axmed Madoobe amray saraakiisha ciidamada in ay bilaabaan howlgal ka dhan ah al-shabaab oo wali ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka si looga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin waxa uu ballan qaaday Axmed Madoobe saraakiisha ciidamada in la siin doono agab kasto ay u baahan yihiin hayeeshee dhankooda looga baahan yahay inay bilaabaan dagaalanka al-shabaab saraakiisha oo la kulmay madaxweynaha Jubbaland ayaa laba toddobaad ka hor waxa ay magaalada Dhobley ku soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaas oo saraakiishu sheegeen inay fulin doonaan howlgal ka dhan ah al-shabaab ay cid kasta oo cadow ku ah maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo doorashadii uu ku qabtay Kismaayo ka hor timid dawladda federaalka wuxuu wadaa abaabul uu dib isugu ururinayo ciidamada daraawiishta maamulkaasi si aan saameyn taban ugu yeelan dhaqdhaqaaqyada ciidamada dawladda federaalku maanta wuxuu la kulmayaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka waxaana kulanka kale uu la balansan yahay saraakiisha Kenya ee hogaaminaysa howlgalka AMISOM gaar ahaan gobolada Jubbooyinka madaxweynaha Jubbaland ayaa galinkii dambe ee shalay Dhobley ku tagay diyaarad military oo ka qaaday magaalada Kismaayo ay leeyihiin ciidamada cirka dawladda Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo baajin lahaa kulan ay xad barita ilhaamisay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo baajin lahaa kulan maanta oo axada ka dhici doona magaalada Muqdisho kaasi oo ay ilaamisay beesha mudulood shirkaasi oo qaban qaabadiisu muddooyinkii dambe ku socday magaalada Muqdisho isla markaana ay isugu imanayeen waxgaradka beesha ayaa waxa lagu xusumay madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiin kale oo hayb ahaan ka soo jeeda beesha mudulood Muxidiin Xasan Afrax oo kamid ah waxgaradka beesha mudulood oo u waramay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in kulankaasi ay isku imaanayso beeshu uusan xambaarsanayn wax caqabada oo ku wajahan dawladda ama qabiilo kale wararka ay helayso warbaahinta wararka maanta TV ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda federaalku ay ku dadaalayso in la baajiyo kulankaasi bari loo ilaamiyay inay isku yimaadaan waxgaradka beesha mudulood kaas oo ay sida sheegeen waxgaradka beeshu ay uga tashanayso aayaheeda beelnimo siyaasiyiin dhalinyaro iyo waxgarad kale oo beesha ka soo jeeda ayaa la sheegay in dawladdu ay u adeegsanayso baajinta shirkaasi waxayna wararku sheegayaan in waxyaabaha la qorsheynayo in lagu lafagaro kulankaasi ay kamid yihiin wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho maqaamka caasimadda iyo arrimo kale kuwaas oo ka hadalkoodu aysan mahdin madaxda dawladda federaalku Muxidiin Xasan Afrax oo kamid ah waxgaradka beesha mudulood ayaa sheegay in haatan wax culays ah aysan ka dareemeyn dhanka dawladda balse ay ka warhayaan dad loo soo adeegsanayo sidii loo baajin lahaa shirkana isagoo carabka ku adkeeyay in kulankaasi uu dhici doono maalinta axadda ah isla markaana uu socon doono ilaa inta ay ka soo baxayaan qodobo gundhig u ah ayaha beesha tani wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dhawaan soo gaaray magaalada Hargeysa kuwaas oo kulamo la qaatay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi kulamadaasi oo ah kuwa albaabada u xirnaayeen ayaa waxa laga wada hadlay safarka la sheegay inuu farmaajo ku imaanayo magaalada Hargeysa inkastoo uusan ahayn ujeedka ugu weyn ee Axmed Shide ugu safray caasimadda Somaliland ee Hargeysa Axmed Shide iyo wafdigiisa ayaa Somaliland u tagay dardargelinta heshiiska dekada Berbera ee Itoobiya ay qaybta ka ahayd isagoo xukuumadda Biixi kala hadlay heshiiskaasi oo ay kala ahayd saami dhan 19% iyo iswaafajinta canshuuraha iyo jidka Berbera ee koridor wasiirka ayaa madaxweyne Muuse Biixi u sheegay in dawladda Itoobiya aysan rabin in xiisada Soomaaliya iyo Somaliland ay sii xumaato balse qorshaha Abiy Axmed ee safarka farmaajo ee Hargeysa uu yahay niyad wanaag iyo isku soo dhaweynta labada dhinac
safiirka wasiir Axmed Shide ee Hargeysa ayaa ku soo aaday xilli uu soo shacbiyay qorshaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee safarka farmaajo ee magaalada Hargeysa isla markaana uu madaxweyne Biixi si qayaxan uga hor yimid safarkaasi. warbaahinta wararka maanta TV ayaa ogaatay in wasiir Shide ay madaxweyne Biixi isla soo qaadeen qorshaha uu Abiy Ahmed ku doonayo inuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo keeno magaalada Hargeysa. wasiir Shide ayaa la sheegay inuu madaxweyne Biixi u sheegay in qorshaha Itoobiya uu ahaa niyad wanaag balse aanay uga jeedin cadaadis iyo in xaaladdu sii xumaato, waxaana uu sheegay inay arkeen dareenka ka dhashay qorshaha ra'iisul wasaare Abiy. inkasta oo xukuumadda Somaliland ay si adag uga hortimid safarka farmaajo ee Hargeysa, haddana ma cadda in Abiy Ahmed uu ka laabtay qorshihii uu ku rabay in madaxweyne Farmaajo uu ku geeyo caasimadda Somaliland. waxaa kale oo la rumaysan yahay in socdaalka wasiir Shide uu si toos ah ula xiriiro midkii u dhawaan Abiy ku tagay dalka Imaaraadka Carabta, kaasi oo u daarnaa arrimo la xiriira heshiiska dekada Berbera oo gaabis badani ku yimid muddooyinkii dambe. ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo xukuumadda Muuse Biixi ay ka soo saartay kulamada wafdigaasi, balse waxaa sidaasi tibaaxaya xogo aanu ka helayna xukuumadda kulamadii wasiir Shide iyo xukuumadda madaxweyne Biixi. maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa jawaab ka bixin doona caburinta ay dowladda federaalka ku hayso magaalada Dhuusamareeb. waxaa sidaas sheegatay mid ka mid ah 20 xildhibaan ee Ahlusunna ugu jirta baarlamaanka Galmudug. xildhibaan Cibaado ayaa sheegtay maamulka Ahlusunna in ay hadda kadib u dulqaadan doonaan bandowga dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. magaalada ayaa waxaa ku wada sugan Axmed Cabdi Qoorqoor oo ah madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda iyo Sheekh Maxamed Shaakir oo ah madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlusunna. xildhibaan Cibaado ayaa sheegtay in magaalada Dhuusamareeb ay amni ahayd kahor inta aan la keenin ciidamada laga qaaday magaalada Muqdisho ee Haram Cad loo yaqaani, kuwaas oo magaalada geliyay xaalad bandow ah. waxay sidoo kale shaaca ka qaaday in hoggaanka Ahlusunna ay kulamo ka yeesheen xaaladda taagan isla markaana ay go'aan ku gaareen inay jawaab laga bixiyo caburinta ay dowladda Soomaaliya ku hayso shacabka Dhuusamareeb. xildhibaanku ma aysan shaacin nooca jawaabta ay bixin doonaan, hase yeeshee cabsi xooggan ayaa ka taagan magaalada. hogaamiyaha ururka Ahlusunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud ayaa 13 bishan ku dhawaaqay in Ahlusunna ay la soo baxayaan hubkooda si ay uga hortagaan fasahaadka ay dowladdu ka wado magaalada Dhuusamareeb. hase yeeshee waxaa muuqata in maamulka iyo awoodda magaaladu ay kasii dhammaanayso gacanta Ahlusunna, iyadoo dhowaan kooxdan lagala wareegay ilihii dhaqaalaha ee magaalada halkii ay horey u lumiyeen awooddii ciidan. dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay raaligelintii uu madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan ka bixiyay xasuuqi Siyaad Barre ee deegaanada Somaliland. wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaana warbixinteeda toddobaadlaha ah ee Week in the Horn ku sheegtay in raaligelinta farmaajo ay qayb ka tahay tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee loo arkayo isfaham ay labada dhinac gaareen. warbixintani wasaaradda ayaa waxaa kale oo lagu xusay qaabkii uga jawaab celiyay raaligelintaasi madaxweynaha Somaliland, waxaana lagu yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay raaligelin guud oo madaxweyne Farmaajo ka bixiyay xasuuqyadii Siyaad Barre. madaxweyne Biixi waxa uu ugu socodtamay tallaabadani inay tahay mid gaar ah oo taariikhi ah. sidoo kalena waxaa warbixintaasi lagu sheegay in labada madaxweyne ee Farmaajo iyo Biixi ay magaalada Addis Ababa ku qaateen kulankoodii ugu horreeyay oo albaabadu u xirnaayeen. toddobaadka hore labadoodu markii ugu horeysay waxay kulan albaabadu u xiran yihiin ku yeesheen Addis Ababa ayaa lagu yiri warbixinta toddobaadlaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa u muuqata mid iyadu door weyn ka ciyaaraysa in dib u furmaan wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo muddo hakad ku jiray iyo weliba dejinta xiisad ka dhaxaysa labada dhinac. wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Ceel Cali ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo u dhaxeeyay dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. dagaalkan dhex maray dadka deegaanka Ceel Cali iyo Al-Shabaab ayaa yimid kadib markii deegaanka lagu arkay dhagax qaali ah oo dadka deegaanku ay heleen. maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo maqlay dhagaxa qaaliga ah ee heleen dadka Ceel Cali ayaa weerar ku soo qaaday, waxayna taasi keentay inuu qarxo dagaal dhiig badan ku daatay. sida ay sheegeen dadka deegaanku, dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo shacab ah, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa 5 qof. sidoo kale dagaalka ayaa wuxuu khasaare dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan golaha shacabka kana soo jeeda deegaanada lagu dagaalamay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la soo farmuuqay dadka helay dhagaxaasi, taas oo sababtay inay weerar ku qaadaan. xildhibaanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dhagaxa gaadiid sida lagu qabtay deegaanka Siinka Dheer ee duleedka Muqdisho kadib markii ay ka war heleen in Muqdisho loo soo wado si loogu iibiyo dadka daneeya. odayaasha dhaqanka deegaanka Ceel Cali ayaa arintani ku tilmaamay wax laga xumaado, iyagoo xusay in dhagaxaasi uu keenay dhimashada 2 qof oo shacab ah iyo dhaawac tiro intaasi ka badan. maamulka Puntland ayaa waxaa ka taagan khilaaf ku saabsan cidda leh awoodda maamulka dowlad goboleedka Puntland marka ay deegaanadaasi ka wada maqan yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo ka hadlay arrintani ayaa madaxweynaha Puntland ku eedeeyay inuu ku ciyaaray hab maamuuskii dowladnimada kadib markii uu kusimo ka dhigtay wasiirka cadaaladda.
abukaata Ismaaciil ayaa ku doodayay in haddii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu dalka ka maqan yihiin ay tahay in talada lagu celiyo guddoonka baarlamaanka maadaama Puntland ku dhisan tahay parliamentary system. Puntland waa parliamentary, haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay maqan yihiin waa in talada baarlamaanka lagu soo celiyaa. Sida aan hadda wax ku wadno waa maamuus ku ciyaarid, ayuu yiri xildhibaan Ismaaciil. Waxaa hadda dalka dibadiisa ku maqan madaxweynaha Puntland Siciid Dani, ku-xigeenkiisa Karaash iyo gudoomiyihii baarlamaanka Jibriil, waxaana xilka sii haya ka ah wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta, dastuurka iyo ku dhaqan celinta dowladda Puntland Cabdiwali Sheekh Xamuud. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen warbixinadii ugu dambeeyay ee aan idin haynay. Intaan warbixinadan kuwa ka xiiso badan ku kulmi doono waxay idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.